بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أربعة وقميص أي سوق ليسو أفريو توانك بيشا مي سنة كلا بكل لباتنية شن أو كوباغن لحية توانك بيشا دول قعد سنة كن أفر بقول لا فرتنية لح تاريخ ذي هجريد كسو دوادا مركله إيا برامجكي قبرها قضبدا برامج كان عاوان ذي كوهيننا وحا كميدا ما نبع إن لقود لي دقيمه قدام بيه قزا كدعي محمد سنوار oo ka mid ah hogaamiyaasha iska cabinta Falastiiniyiinta oo la dhashay Yahya Sinwar warbixin iyo wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan ayaa lidii haynaa ciidanka Suudaan oo galabtay la wareegay deegaanka Salax ee koonfurta Umudurban halkaasi oo ahayd goobtii ugu dambeysay ay ka dagaalamayeen xoogagga RSF dawladda Hindiya ayaa si adag uga hortimid qorshaha Trump uu ku doonayo inuu ku xalilo mushkiladda gobolka Kashmir ee ay ku muransan yihiin Pakistan madaxweyne Erdogan oo markii ugu horeysay ka hadlay tilabadii ururka PKK ay ku kala direen dagaalyahanadoodii hubkana ay ku dhigeen Mareykanka oo ku dhawaaqay tilabo culus oo la xiriirta Xuutiyiinta Yemen maalmo uun kadib markii xabad joojin ay ku heshiiyeen haddaba maxay tahay tilabadan Washington ay qaaday maxayse Xuutiga uga jawaabi doonaan waan eegi doonaa warkaasi sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan idin kugu hayaana waxay ku aadan tahay mid ka mid ah madaxweynayaasha soo maray dal ka mid ah qaaradda Afrika oo xabsi loo dhaadhiciyay maxay tahay sababtu faahfaahin baan ka haynaa arrinkaasina dhammaan qodobadan iyo kuwa kaloo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa waxaynu ka hormaraynaa xiisadda Hindiya iyo Pakistan ka dhex aloosan iyadoo lagu heshiiyay xabad joojin ayaa weli Hindiya waxay go'onaysaa dharbaaxadii ka soo gaartay dagaaladii dhacay toddobaadkii la soo dhaafay haddaba war culus ayaa ka soo yeeray dawladda waddanka Hindiya iyadoo sidoo kalena aan idin soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya oo digni ka bixinaya tilaabooyin dambe oo Pakistan ay qaado laakiin markan arrintu waxay qusaysaa xagga Mareykanka haddaba dawladda waddanka Hindiya ayaa dhaleecaysay hadal uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo Hindiya iyo Pakistan sidii xal loogu heli lahaa arrinta Jammu iyo Kashmir iyadoo dawladda Hindiya ay ku adkaysatay in arrintaasi ay tahay mid u taal New Delhi iyo Islamabad dhexdooda afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Hindiya Randir Jaiswal ayaa maanta war-saxaafadeed oo soo saaray waxa uu ku sheegay in dalkiisu uu leeyahay wasi hadalka u dhigay mowqif qaran oo soo jireen ah isagoo tilmaamay kaasi inuu yahay kan la xiriira arrimaha Jammu iyo Kashmir kaas oo ku salaysan in Hindiya iyo Pakistan si laba geesood ah ay uga wada hadlaan arrintan Jaiswal waxa uu adkeeyay in aan wax isbedel ah ku imaan karin mowqifkooda ku aadan arrinta Kashmir isagoo xusay in xudunta arrintu ay tahay wasi hadalka u yiri in laga saaro dhulka Hindiya ee sida sharci darrada Pakistan ay ku haysato Trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu ku qoray baraha bulshada inuu doonayo inuu la shaqeeyo Hindiya iyo Pakistan sidii loo xalili lahaa mushkiladda arrinta Kashmir Hindiya ayaa diblomaasi ka tirsan safaaradda Pakistan saacadihi la soo dhaafay ee magaalada Delhi waxay ku dhawaaqday in loo jaray persona non grata sabab la xiriira dhaqan aan waafaqsaneyn xilkiisa dhanka diblomaasiyadda isla markiiba Pakistan ayaa ina diblomaasi ka tirsan safaaradda Hindiya ee Islamabad waxay ku dhawaaqday in isna uu yahay persona non grata oo macnaheedu ay tahay in aan laga doonayn waddanka sabab la xiriira hawlo aan la jaan qaadi karin xuquuqdiisa dhanka diblomaasiyadda bishii May 7 ayaa isku hormaad waxa uu dhex maray ciidamada Pakistan iyo Hindiya kadib markii Hindiya ay qaaday weerar gantaal ah oo lagu qaaday dhulka Pakistan iyo gobolka Azad Kashmir ee ay maamusho Islamabad weerarkaasi ayaa waxa uu yimid kadib 22 bishii Abriil weerar ka dhacay deegaanka Pahalgam oo lagu dilay 26 qof deegaanka ay maamusho Hindiya ee Kashmir sabtidii Hindiya iyo Pakistan waxay ku dhawaaqeen heshiis rasaas joojin buuxda kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida uu sheegay uu dhexdhexaadiyay labada dhinac waa tahay markan balaynu eegno dagaalka waddanka Suudaan iyadoo lagu soo waramayo dagaaladu inay xoogeysanayaan gaar ahaan gobolka Darfur iyo gobolada kale ee bartamaha waddankaasi ayaa
saacadihii la soo dhaafay ilo wareed ka tirsan militariga waddankaasi Suudaan waxay daboolka ka qaadeen in cutubyo ka tirsan ciidamada dawladdu ay galeen xaafadda Salha ee koonfurta Omdurman taas oo ahayd goobtii ugu dambeysay ay gacanta ku hayeen ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ee ka dagaalamayay aaggaasi oo dhaca koonfurta magaalada warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaysa in ciidamada RSF ay ka carareen goobahaasi iyagoo u ruqaansaday dhanka galbeed ee Suudaan RSF ayaa toddobaadyadii u dambeeyay waxay xoojisay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska si ay u beegsadaan saldhigyada militari iyo xarumaha muhiimka ee ay maamulaan ciidamada militariga inkastoo RSF laga saaray goobo badan oo ay ku jirto caasimadda Khartoum haddana waxay ku adkaysanayaan inaysan isdhiibayn waxaana ay wadaan weerar xagga cirka ah labadii bilood ee la soo dhaafay ciidamada Suudaan ayaa guulo waaweyn waxay ka soo hayeen dagaaladii ka dhacay Khartoum iyo deegaano kale waxaana ay la wareegeen xarumihii militariga iyo kuwii diblomaasiyadda ee ku yaal magaalada Khartoum ee caasimadda iyadoo laga saaray RSF meelo istiraatiiji ah dagaalka Suudaan oo qarxay 15 bishii Abriil 2023 ayaa waxa u dhaxeeya ciidanka militariga Suudaan ee uu hogaamiyo General Abdul Fattah al-Burhan iyo ciidamada RSF oo hogaamiyo Maxamed Hamdan Dagalo Hameti iyadoo la sheegayo in taasina ay sababtay masiibo dhanka bini'aadantinimada oo baahsan dagaalka waxaa ku dhintay 10,000 qof in ka badan 13 milyan qof ayaa barakacay ama qaxay iyadoo qaybo badan oo dalka ka mid ah ay ka jirto macaluul ba'an وهاجاك إمكانه أنكرا madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay markii ugu horeysay go'aanka ururka PKK dawladda waddankaasi Turkiga dagaalka kula jiray muddo ka badan 40 sano ay go'aansadeen inay hub ka dhigaan laguna kala diro xogagii ururkaasi u dagaalamayay warbixin amurahan ku aadan waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timacdi madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisa uu galay waji cusub kadib markii ururka PKK ee Kurdiyiinta uu ku dhawaaqay inuu kala dirayo dagaalyahanadiisa isla markaana ay hub ka dhigayaan isagoo ka hadlayay xildhibaanada xisbiga xukunka haya ee cadaaladda iyo horumarka AK Party ee baarlamaanka Erdogan waxa uu sheegay in siyaasiyiintu ay bilaabi doonaan wada hadallo ku saabsan arrimaha taagan marka PKK ay buuxiyaan balaqaadkooda ah inay hub ka dhigayaan madaxweynaha Turkiga waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in laamaha PKK ee Suuriya iyo Yurub ay qaataan go'aan la mid ah kan xisbiga ee ah kala dirista dhaqdhaqaaqa Erdogan waxa uu yiri waxaan si adkaysi dulqaad iyo niyad wanaag ah ugu shaqayn doonaa in aan gaarno yoolka ah in Turkiga uu noqdo dal aan argagixiso lahayn waxaana si wax ku ool ah uga qayb qaadan doonaa dadaalada nabadda ee gobolka iyo meelaha ka baxsan maanta Turkiga waxa uu noqday xarun muhiim ah oo diblomaasiyadda iyo nabadda ah waxa uu intaasi ku daray waxaan rabnaa in magaca Turkiga lagu xasuusto tiknoolajiyadda dhaqanka farshaxanka heerarka sare ee dimuqraadiyadda iyo horumarka aadanaha ee aan lagu xasuusan argagixiso dhinaca kale madaxweynaha Turkiga waxa uu hadalkiisa ku muujiyay mahadcelin uu u diray madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump kadib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu qaaday dhammaan cunaqabatayntii saarnayd dawladda Suuriya Trump waxa uu maanta shaaciyay qaadista cunaqabataynta Suuriya kadib markii uu taleefanka kula hadlay madaxweyne Erdogan dhankiisa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay saaxiibkiis Trump inuu taageeri doono dadaalada Turkiga ee lagu dhameynayo musiibada bini'aadantinimo ee Gaza PKK ayaa 2 maalmood ka hor shaacisay inay kala dirayso dagaalyahanada hubka dhigayso isla markaana ay joojinayso dagaalka hubeysan ee kula jirtay Turkiga go'aankan ayaa lagu gaaray shir uu xisbigu qabtay intii u dhaxaysay 5 ilaa 7 bishan aynu ku guda jirnay ee May taasi oo dhameynaysa 40 sano oo uu socday dagaalkii ay kula jireen dawladda Turkiga hawshan keentay in PKK iskala dirto oo ay dagaalka ka tanaasusho waxay ka timid hindisa uu soo jeediyay hogaamiyaha xisbiga dhaqdhaqaaqa qarniga Turkiga ee MPH magacooda loo soo gaabiyo Dalfed Bahjeli ururka PKK oo hogaankiisa sare uu ku sugan yahay buuraha waqooyiga Ciraaq ayaa si togan waxay uga jawaabeen 1 Maarso soo jeedin ka timid hogaamiyahooda Abdullah Öcalan oo ugu yaraan 40,000 وهاجاك أنا قد بدنا وركع قزة لكن أربعين إسرائيليين تأيي حاتن كور رميسة توجش كرد عدي ديجان كويا لا دانت قلبات الهايستو إن رصاص لجوفري ضد إسرائيليين أو كسرنا ديجان كليرادو برخين وحنا لجوسو رمي إنه كويا ديجان كان لك وقوي دانت قلبات ورجيس كإسرائيل today أي واحد السورين يا إن عندما مدة مرترجة إسرائيل حقيقيا توجش دعسي
ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa 2 qof in si xun dhaawac u soo gaaray lama oga khasaare kale oo ka dhacay iyo cidda ka dambeysay weerarkaasi laakiin muddooyinka ugu dambeeyay daanta galbeed waxaa ku soo badanaya weerarada ay geysanayaan xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ee halkaasi ka howlgalaya iyadoo Israa'iil ay sii wado in ka badan 100 maalmood howlgallada ay ka wado Tulkaram iyo Janiin xagga Gaza Israa'iil waxaa lagu soo warramaya inay wado duqeyn aad u xoogan inkastoo magaalada Dooxa ay ku sugan yihiin wafuud kala duwan madaxweynaha Mareykanka halkaasi caaw ku hoyanayo isagoo halkaasi ku tagay lugtiisii labaad socdaal ku marayo gobolka Bariga Dhexe waxaa la sheegayaa in Israa'iil duqeyntan maantay ay fulisay dad ka badan 100 qof dhimasho dhaawac lagu geystay wararka waxay taasi ku darayaan in goor dhaweeto hadal uu ka jeediyay magaalada Dooxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ka hadlay inuu rajaynayo sidoo dhigay in la soo daayo dadka la haysto wuxuu yiri sida loo soo daayay Iidan Al-Iskandar oo ahaa askari Amerikaan Israa'iiliya inuu rajaynayo in loo soo daayo dadkaasi arrintan waxay dhalisay hadal hayn aad u ballaaran waxa leeyahay Trump ma wuxuu ka fakarayaa oo kaliya dadka Israa'iiliinta lagu haysta Mareykanka Gaza dagaalkan imika socda oo maanta oo kaliya dad ka badan 100 qof dhimasho dhaawac lagu geystay miyuusan ka hadlay miyuusan cadaad saari karin Netanyahu oo dagaalkan sii wada isla markaasna ku adkeysanaya dagaalka inuu sii wado dood adag ayay dhalisay hadalkan goor dhaweeto u jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kale wadamada qaliijka ayaa aad waxa loogu dhaliilayaa shirkii maanta ka dhacay magaalada Riyadh boqortooyada waddankaasi Sacuudiga inaan si weyn xoogga loo saarin baahida loo qabo dagaalkan in la joojiyo iyadoo dadka arrimahan aadka u dhow ay leeyihiin waxay ahayd fursad muhiim ah in laga faa'iideysto xilligan oo wadamada carabtu malaayiin dollar hadii ay sahayn balaayiin dollar ay u saxiixayaan Mareykanka caawa magaalada Dooxa Ameerika Qatar iyo madaxweynaha Mareykanka waxay ku kala saxiixdeen heshiis ku kacaya 1.2 trilyan waxaana la sheegayaa in ay ka mid yihiin 200 oo bilyan oo 160 diyaaradaha Boeing ay samayso ay ku soo gadanayso shirkadda diyaaradaha Qatar Airways sidoo kale waxa kamid ah agab kale military ay kamid tahay diyaaradda MQ-9 laakiin waxa la yaab leh Xuutiyiinta iyo dadka Yamaniinta oo ka falcelinaya waxay leeyihiin diyaaradaha anagu sida shimbirihan u soo daadinay miyaa lacagta looga daldalanaya oo si hadalka u dhigeen Yamaniintu war Yaman ku soo socda ayaa war ku saabsan ay noo soo socda laakiin balayn eegna warka ku saabsan shalay Israa'iil waxay duqeyn culus ka geysatay cisbitaalka Yurubiyaan ee ku yaala Khan Yunis waxaana Israa'iil ku andacoonaysaa in duqeyntaasi lagu beegsanayay Maxamed Siwaar oo ka mid ah hogaamiyaasha sarsare ee iska caabinta Falastiiniyiinta wuxuuna la dhashay Yahya Siwaar oo sanadkii hore ku dhintay iskoormada ciidanka Israa'iil oo kula galay Rafah waxaana la yiraahdaa Maxamed Siwaar kama liidan Yahya Siwaar marka loo eego xagga abaabulka isku xirka dhaqaalaha iyo maamulka iska caabinta Falastiiniyiinta hadaba aynu eegno telefishinka Al Jazeera warbixin goor dhaweeto uu diyaariyay oo arintani ku aadan dadka falaqeeya arrimaha bulshada ayaa shaki weyn waxay ka muujinayaan in ciidanka Israa'iil ay dileen Maxamed Siwaar kadib duqeyn lagu beegsaday cisbitaalka Yurubiyaan ee Gaza shalay galkii dambe ciidanka Israa'iil ayaa talaadadii si xoogan waxay u garaaceen agagaarka cisbitaalka Yurubiyaan ee Khan Yunis ku yaal iyadoo duqeyntu si gaar ah u saameysay barxadda banaanka iyo qaybta gargaarka degdega ah ee cisbitaalka sida lagu sheegay war uu baahiyay telefishinka Al Jazeera oo barnaamij gaar ah ka sameeyay arrintan diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa ku garaacay halkaasi 40 bambo ama gantaal oo kuwa loogu talagalay inay dhulka hoos u galaan gantaalkaasi midkiiba miisaankiisa wuxuu dhan yahay 1 tan taasi oo noqotay mid kamid ah weeraradii ugu xooganaa ee Gaza lagu qaaday tan iyo markii dagaalkan uu bilowday kaamirooyinka ammaanka sawirada saxafiyiinta iyo dad goob joogayaal ah oo muuqaala telefoonka ku duubay daqiiqadii ugu horeeyay ee weerarkaasi ayaa waxay arkayaan dab holcaya iyo dhulka oo gariiray waxaana la sheegayaa in warbaahinta Israa'iil ay ku andacoonayso weerarkan in bartilmaameedkiisa uu ahaa Maxamed Siwaar oo kamid ah xubnaha ugu sareeya guutooyinka Al-Qassam xaqiijinta dilka Siwaar oo adkaatay saacada kadib wargeysada Israa'iil waxay qireen in militariga Israa'iil uu la daala dhacayo sida loo xaqiijin lahaa in weerarkaasi uu guuleystay oo lagu dilay Maxamed Siwaar waxaana la sheegayaa in baaritaano ay socdaan taasi oo qaadan karta sida hadalka loo dhigay toddobaadyo maalmo sabab la xiriira goobta la beegsaday oo si xad dhaaf ah xaaladdu u adag tahay qoraal ay soo saareen ciidamada Israa'iil waxay ku yiraahdeen waxaynu beegsanay kooxo ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa xarun dhulka hoostiisa oo ku taal cisbitaalka hoostiisa halkaasi oo maamulka isgaarsiinta laga hago si hadalka loo dhigay
balse laguma xusin warka wax ku saabsan dilka Maxamed Siwaar ama in Israa'iil ay ku guuleystay dilkiisa. Kooxda Xamaas waxay beenisay sheegashada ciidanka Israa'iil ee ah in goobta la beegsaday ay ahayd xarun military oo ku taal dhulka hoostiisa, waxayna ku tilmaameen been abuur cad iyo isku day lagu marhabaabinayo ra'yul caalamka, khasaaraha rayidka iyo falcelinta bulshada. waaxda gurmadka rayidka ee Gaza ay waxay sheegtay in ugu yaraan 28 qof duqeyntaasi lagu dilay halka 70 kale lagu dhaawacay. baraha bulshada ayaa si weyn waxa uga falcelinaya dhacdadan dadka arrimaha Falastiiniinta u dhaqaaqa iyo kuwa kale ee bulshada, waxaana ay tilmaameen in Israa'iil isku dayayso in ay ku qariso dambigeeda sida halka loo yiri dadka rayidka ay xasuuqday sheegashada dilka Sinwar. qof magaciisa ku soo koobay Abir ayaa waxa uu qoray waa been cad, wax cadeynaa ma jirto joogitaanka Maxamed Sinwar ee goobtaasi, balse waa marqaati kale oo muujinaya dambiyada Israa'iil kula kacayso cisbitaalada. qof kale isna magaciisa ku koobay Captain ayaa waxa uu yiri markasta oo Israa'iil xasuuq ay geysato waxay sheegtaa inay dishay hebel si ay sabab uga dhigato in ay sii wado dilka, burburinta cisbitaalada iyo gaajeynta dadka gaajada ay ku dilayso. sidoo kale Axmed Jumca ayaa waxa uu qoray tani waa qaabka warbaahineed ee Sahiyuuniyadda ay u adeegsato xasuuqyadeeda si ay u abuuraan cabsi oo loo yiraahdo iska caabintu waxay xaqiijisay ama beenisay kadibna mar labaad ay u beegsato goobaha lagu weeraray. ugu dambeyn dhaqaaqa lagu magacaabo Marvel ayaa waxa uu qoray siyaasadda dilalka qorshaysan ma gaari doonto ujeedada laga leeyahay, waayo iska caabintu waa mid dadku jecel yihiin oo ku xiran maskaxda jiilal badan kuwaasi oo garanaya in xorriyad iyo madax banaani ay yihiin yoolka loo socdo. sidoo kale raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa waxa uu soo xigtay ila amni oo sheegaya in ciidamadu ay wadaan ama ay sii wadayaan beegsiga agagaarka cisbitaalka saacadii ugu dambeeyay ee maanta si waxa la yiri looga hortago in goobtaasi laga soo saaro meydadka. waayo warkaasna intaas aynu ku dhaafno ilaa hadda Xamaas ma soo hadal qaadin Sinwar magaciisa, laakiin waxay sheegtay in goobtaasi la duqeeyay oo cisbitaalka ku taal aysan jirin inay u ahayd xarun. weliba militariga Israa'iil way ka wareegsanayaan warkaas, waxay leeyihiin waxay qaadan kartaa arrintan baaritaankeeda maalmo iyo toddobaadyo. waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha. sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka ayaa inagu soo fool leh, laakiin bal markana aynu eegno dhanka Washington. iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump intii aanu ka soo sodcaalin waddanka Mareykanka toddobaadkii hore ku dhawaaqay heshiis Xuutiyiinta ay la gaareen, ayaa Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay arrin weyn oo la xiriirta Xuutiyiinta Yaman. haddaba aynu eegno wakaaladda wararka ee AP war ay qorayso. Mareykanka waxay sheegeen in cunaqabatayn ay ku soo regi doonaan waddan, koox ama qof kasta oo siiya shidaal, agab ciidan ama tisiilaad kale kooxda Xuutiyiinta ee Yaman. toddobaadkii hore madaxweyne Trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanku uu joojin doono weerarada ku haya Xuutiyiinta, waxaana la sheegayaa in taasi looga gol lahaa si loo joojiyo weerarada maraakiibta Mareykanka badda cas gooshaysa. safiirka kumeel gaarka ee Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Dorothy Shea ayaa waxay ku sheegtay shir u lahaa golaha maanka ee qaramada midoobay in Iran waa si hadalka u dhigtay ay si weyn u taageertay Xuutiyiinta iyadoo siinaysa taageero ciidan, mid istiraatiijiyadeed iyo mid sirdoon. waxay tiri goluhu waa inuusan aqbalin iska indhatirka Iran ee qaraarada golaha ammaanka, waana in tilaabo ay ka qaadaan bay tiri kuwa jibinaya cunaqabataynta iyadoo la adeegsanayo qalabka sharciga ee goluhu uu haysan karo ama nidaamyada. warkan markuu soo baxay siyaabo kala duwan baa loo fasiranaya. qaar waxay leeyihiin Donald Trump miyuusan daacad ka ahayn heshiiska Xuutiga oo booqashada ku tagay bariga dhexe gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Qatar, miyuu ugu talagalay Xuutiyiinta inuu iska maslaxo intaas meesha uu joogo. sababta waxay leeyahay cunaqabatayn haddii la sii wado iyo digniinahan macnaheedu waxay tahay in Xuutiga arrintaasna ka jawaabayaan. sheekada la yaab kale waxay tahay marka oo dadka Yamaniyiintu aad uga farcelinayaan, waxay leeyahay weerarkii maanta lagu qaaday magaalada Tel Aviv, gantaalka waxaa la dulmariyay Sacuudiga, xilligaas waxaa ku sugnaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. marka waxay leeyahay tan wuxuu ugu talagalay Donald Trump inta uu ku sugan yahay gobolka bariga dhexe xaaladda inuu ku dejiyo, laakiin wargeyska New York Times ka soo baxa waddanka Mareykanka sheeko u qoray wuxuu ku sheegay sababaha ugu wacan inay tahay joojinta weerarada Xuutiyiinta, iyadoo la sheegay wax allaale wixii duqeyn ee lagu sameeyay Xuutiga inaysan waxba yeelin awoodooda, oo Donald Trump uu qiray sida uu yiri inay u adkayseen wax kasta oo lala dhacay oo ay geesinayaan meesha ku jirto sida hadalka uu yiri. marka sheekadu waxay u muuqataa hadda in Mareykanku isku dayay in uu iska dhigo Xuutiga inuu weli ku sii hayo cunaqabatayn,
sidoo kale waxa leeyahay sida New York Times ay qorayso maalmo ka hor intaan heshiiska la gaarin Xuutiga waxay sigeen inay soo ridaan laba diyaaradood oo ah waliba kuwa casriga ah F-35 waxa qoraya wargeyska New York Times warbixintaas waa tahay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay ayaynu soo gaarnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawataan xalay maahanay habeen hore waxaan idin soo gudbinay madaxweyne la guddoonsiinayo diyaarad qasriya waa Donald Trump oo qadar caaw ku hoyanayo ayaa diyaaraddaasi 400 milyan oo dollar ku fadhida ugu talagashay hadiyad inay u siiso xalayna waxaan idin soo gudbinay madaxweynihii waddanka Gambia oo hantidiisa la xaraashayo gawaari iyo guryo wuxuu lahaa sababtan ay tahay sida hadalka loo dhigay sharci darro oo ku kacay waxaan idin haynaa madaxweyne kale oo isna xabsiga loo taxaabay madaxweynayaasha ay ka dhamaan laada habeenkane haddaba waxaa leeyahay madaxweynihii hore ee waddanka Mauritania Maxamed Walad Cabdulaziz ayaa 15 sano xabsi lagu xukumay iyadoo lagu helay dambiye ay kamid yihiin ku takarfalid xafiiska iyo musuqmaasuq sida ku waramaysa warbaahinta maxalliga madaxweynihii hore ee Mauritania ayaa waxa uu hor yimid maxkamad isagoo wajahaya eedamo ay kamid yihiin xoolo urursi sharci darro ah ku takarfalid awoodeed adeegsiga saameynta siyaasadda si gaar ah iyo waliba waxyaabo la xiriira lacag dhaqis iyo wax isdabamarin waxaa la sheegayaa in ilaa iyo 12 eedood lagu soo oogay sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo horey uga mid ahaa maamulkiisa ayaa iyaguna wajahaya dacwadahani waxaa ka mid ah 2 ra'iisul wasaare oo hore wasiiro iyo waliba maamulayaal shirkado waaweyn bishii February xeeraalinta guud ee Mauritania ayaa codsatay in xukun 20 sanaha lagu rido Walad Cabdulaziz taasi oo ka dambeysay kadib markii maxkamadda racfaanka ee magaalada Nouakchott ay ku heshay cadeymo musuqmaasuq iyo ku takarfalid dhanka awoodda xeeraryaha racfaanka maxkamadda ayaa waxay ku eedeeyeen in madaxweynihii hore intii xilka uu hayay dana shaqsi uu isticmaalay awoodda xukunka Walad Cabdulaziz oo 69 jir ah waxaa la sheegayaa in xabsiga uu ku jiray tan iyo markii maxkamadeyntu ay bilaabatay January 2023 laakiin hadda waxaa lagu xukumay 15 sano xabsiga maamulkiisu wuxuu jiray 2008 ilaa 2019 waxaana la sheegayaa in muddadaasi lagu eedeeyay arrimo kala duwan oo musuqmaasuq ah 17 qof oo kale waxa la sheegayaa in ayagana dacwada loo haysto